kulamadan uu maanta wasiirku la yeeshay culimada iyo sidoo kale cuqaasha ayaa ahaa kuwa gabi ahaantoodba lagaga hadlayay sidii loo adkeyn lahaa loona ilaalin lahaa nabadgelyada gobolada waxaana wasiirka ku wehelinayay kulamadaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wasiiradaasi oo iyagu kala ahaa wasiirka wasaaradda beeraha Faarax Cilmi Geedoole iyo sidoo kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal maamulka heer gobol iyo heer degmo wasiirku kala hadlayay isla markaasina ay ka wada xaajoonayeen sidii ay u adkeyn lahaayeen isla markaasina uga hortagi lahaayeen cid kasta oo waxyeelaysa nabadgelyada aynu qaban doono waa la arki bal culimaduna markii gooni isku tiray tahay warinta aan ka reebno aynu sida wanaagsan waan ogahay boorama runtii ay dad wanaagsan hadday culimo tahay iyo hadday cuqaal tahay iyo hadday salaadiin tahay aad iyo aad u qiimo badan baa ku nool gobolada qaar baad arkaysaa weliba gobolada qabow inta kulule allah u sahlo dadku hore u dhintaa dadka caqliga sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay sheekul beledka gobolkani Awdal Sheekh Cabdilaahi Sheekh Al Jawhar iyo sidoo kale culimada diinka ka soo qayb galay kulankaasi wixii arrimaha nabadgelyada culimadu waxay ku ogtahay maamulka dawladda iyo odayaasha salaadiinta ee nabadoonnada oo nagala joogo Suldaan Saleebaan iyagoo nabadgelyada dowrka culimadu ay leedahay waa dowrka lisaanka ah oo annagu aanu niraahno had iyo jeer dadka aan ku tirtirsanin nabadgelyo علماء الدور بيليه منبر بيتاجيه منبر كان واحد الشيء قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رهبن إيه وحكي لك مشيء هدي لك الشيء أنا وأرن عن ناس كهبوني سياسة إيه والورق إيه وحضورها الواحد إن بدن بعض وزارة هل كانت الصومال اللي هي القبطهم إن بدن بعض قبط والشقاء وحوناج مويان وما أرجع ديكو أما ريه من شيئا أما سياسة ما نتوسك شو تقول أمانة لا تأكل بيد ما تعطي ما أرجع sidoo kale kulankaasi markuu soo ilaaday waxa uu wasiirku kulan kale ula qaatay cuqaasha ka soo jeeda gobolada galbeedka kuwaasi oo iyagana kala hadlayay sidii ay adkeyn lahaayeen isla markaasina uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka soo wajahaysa bulshada waxaana kulankaasi u dhacay isla markaasina ugu horeyntii halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi oo ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka ay ku leedahay nolosha haddii aynaan nabadgelyo haysan maynaan nabadsaneen halkan maynaan wada fadhineen wax kale inuu ku kala maqnaan lahayn ama walwal badan baa inay haysan lahayn cuqaasha waa odayaashii gobolka ama degmada ama gobolka marka la leeyahay haddii gobolka Sanaag iyo Awdalba la isku daro madax dhaqameedkoodii ayaa timid sameeyay guddidaas waxay ka koobnaayeen 18 waxay yeesheen maamul gudoomiye samaysteen gudoomiye ku xogeen bay samaysteen xogay ay samaysteen waan u dhaqan gelinay wasaaradana waan u gudbinay oo wasaaradda daaqilkuna liiska guddida ee 18 ee gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xogeenka iyo xogayaha ay iyaduna haysaa sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha Faarax Cilmi Geedoole iyagoo aan tilmaamay waxaan ognahay oo run ah halka uu baa joogtay aniga oo magaalada joogo oo aan xilhay iyo rag kale oo fara badan mar hadduu ninku caaqil noqdo caqligiisa iyo garashadiisa ku soo noqdo isagoo beer ama reer ka soo jeeda waa sida uu noqday ilaa intuu dhimanayo waxyeelaya hadday tahay mag iyo mowlaxa iyo wax ka yar iyo haddii tuka weyn tahayba cidda weligeedba xilkuu saarnaa ilaa maanta xilkuu saaran yahay waa cuqaasha waa cidda garata ee ka degdegta intayna dhibi qaban inay ku hortagto waa cuqaasha ragga baxay tabasho uma bixin ana aqbali mayno tabashaan u baxay wallaahi ana ka aqbalay ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde gobolka
inaanu maanta kulanno cidda maanta aanu kulmaynaa ma aha boqol iyo googo-an caqil ee horteeda fadhiya laakiin waxay hor fadhiya bulshadii gobolka awdal ayay hor fadhida waxaan runtii idinku hambaliyeynayaa gobolkani maadaama ahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qiimeyn baanu sameynaa sanadkii gobolkanu gobolka ugu degenaanshaha badan ee ugu dembiga yar ayay gobolada Somaliland number 1 buu ka yahay gobolkii Nuruddin Abdullahi Dugsiye Somali Channel magaalada Boorama